madaxweyne xasan sheekh dada ag fadhi niman shiica u eega xilal loo magacaabo oo abadkay arkin xilligii campaign-ka lagu jiray dadkaas ani ma arkin dad garkooda saa inta garku u deystay maxaan ku maxamuud axmed nijaadkii Iiraan xukumi jiray oo wadago wax shiica laga aqoona maxaan ku yiraahday xilkii dawladda ugu taxawaay farmaajo dadka waa sixri jiray farmaajo maqli jirtay in la dhigi jiray farmaajo waa la jecel yahay oo lii ilaahay waay saan waa dadka in dhulka isku garaaci jireen ma oged farmaajo dadkii tahliilas indhaha idhaga ugu shubi jiray fahad maxaan ku yiraahday wala xiro beesa in jawaan ku soo qaada oo dadka leeyahay aniga caabud heerkaas isgaaray kulan wanaagsan daawadayaasha meel kasta oo aad nagala socotaan halkan waa Itaal Media maanta waxaan la joogaa Maxamed Xuseen Shiine waa nin siyaasadda Soomaaliya aad ugu dhex jira siyaasiyiin badan yaqaana la kulma la sheekaysta oo ay u sahlan tahay falanqeeyana arrimaha siyaasadda ee gudaha dalka maanta studio ayuu nala joogaa marka hore Shiine soo dhawow marka xiga waxaan rabaa inaan ka bilaabo oo aan ku weydiiyo maalin dhexdaas waxa qabatay shir jiraa'id shirkaaga jiraa'id waxa uga hadashay Nisa amaana waa kala dul dhacday agaasimaha ama maaragtay taliyaha Nisa maaragtay maxay ahayd sababta maxaa kugu dhaliyay waa ma santaa ways adiga iyo warbaahintaada iyo shaqaalaha maamulkaada waa kaaga mahadcelinaa shirkaas jiraa'id way fududahay shirkaas jiraa'id wuxuu ahaa hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka 2017 ka soo bilow waxaad ku keentaa 2022 shaqadii qaban jirtay waa la yaqaanaa siyaasi maxaan ku yiraahdaa Soomaaliyeed ra'yi cabiray in daaqadiisi ay diishadiisi in la jibiyo looga dhaco hawar maskiin oo marshaak ku korsanayso oo banaan bax aadi saad u banaan bax in la yiraahdo tarmuusidii shaah laga jijibiyo oday meel tuwaaka ku gadaa in booc tuwaaka laga xoogo shaqada ay nabad sugidii hore qaban jirtay xilligii maxaa Abdullaahi Farmaajo nabad sugidii shaqada ay qaban jirtay waa shaqo la yaqaanay oo maxaan ku yiraahdaa cid ay daag u ka saarayaan ma jirto shirka jiraa'id sababta aan u qabtay waxay tahay meesha waxay yimid nin xog ogaal ah baasaboor ajnabi aan wadanin mahad maxamed salaad la yiraahdo shaqadii nabad sugid lagu yaqaanay ayaa nabad sugid ay qabatay koo way yimid mishaarka uu kordhiyay laba way yimid ciidamadii nabad sugidda afarta xab ah waa kordhiyay ciidan cusub oo sameeyay ciidan badan oo ka dhigay saddex shaqadoodii rasmigeedu u tilmaamay wuxuu yiri shaqadiina waa tana sirdoonaatii saana u shaqaynaysiin muwaadinka xuquuqdan uu leeyahay hay'addan sirdoonka xuquuqdan leedahay sharciyo sameeyay konton dhowr sano kadib labada ninna ma hasalaaliina nin xalila faadiyasiin alilada way nabad sugidda way ku kala horeeyeen xafiiska hadda ma hasalaad u fadhiyo ma hadka lagu dhibi jiray airportka ma dhoofi jiray mucaarada taal dhigi jiray islaamaha banaan baxay waa la kartuuri jiray waad ogtahay ma hadka asagoo maanta xafiiska lagu dhibi jiray fadhiyo ayuu siyaasadna ku mashquulsaneen qof Soomaaliyeed ra'yi cabiray oo ku mashquulsan wuxuu ku mashquulsan in xogti la helo oo nimanka cadiga qawaariijta shabaab xogtooda in la helo in meeshii aadaan lagu daba tago ma arkayno cali dheere iyo teamkiisa baawur inay qori iyo qashin ay ku ran ay ku gabmanayeen nabad sugid ay maanta shabaab ka dhuumanaysa haysana taasa keentay inaan bogaadi oo aan dhiirigelin inaad maaragtay amaantid mahad salaad oo aad dhinac kale dhaliishid Fahad Yaasiin oo la og yahay marar inaad la kulantay oo xitaa sawiradiisa adiga soo dhigay adoo mahad maaragtay Fahad la sawiran xilligaas waa amaani jirtay hadda inaad dhaliishid oo sidaas isu gudgidisid maxaa loo fasirin karaa mahad iskama gaday mahad nin walaala oo ehel aan nahay oo qiimo badan waaye gadisna uma baahno shaqadiisa maanta gaal in muslima aan niikino hay fiiri gaal in muslima hadda mahad maanta u niikino hay mahad maxamed salaadka ataqan gaal in muslima dhoohoy hay maxaa shaqada aad qabatay ilaahay ha ku fuudeel dhooy ilaahay ha ku garab gal dhooy fahadka aad leedahay waa la kulantay waa aragtayna waa sax waa la kulmi waa qira markaas iyada waxa taagnaa kiiskii igraan tahliila taagnaa nimay ehlihiina baladweyne waxa ku xirin nina aniga ehelnay ku xirin arrinkaasaan Fahad kala hadlay meesha aan ku kulana baladweyne rag odayaal oo qiimo badan ka shaqeey inaan is aragno marka Fahad aniga nin reer xasan waay aniga nin hawiye ahay ninka nin hawiye waay nin Soomaaliyeed waa laga muwaadisiin
fahad maxaan ku yiraahdaa wala xiro bees inaas jawaan ku soo qaada oo dadka leeyahay aniga caabud heerkaas isgaar bees madal uu caabudi kara ninkaas qol meeshaan dhax fadhiya intaan isla egyahay aniga caabud aniga wiligeena qof lacag ugu niikinin oo ra'yigeena kuma bedelin dawladda Soomaaliya hadda madaxweyne Xasan Sheekh oo madaxweyne kiye sirdoonkii wax weyn oo liiqaan ka badasho taasna cid walba qiraysa maxay dadka hadda waa dadka Soomaaliya mahadkii la mahdi ay u bixiyeen mahad shabaab dabar jara loo bixiyay marka wixii dadka bulshada keen aniga bulshada ku dhex jirnaa siyaasiyiintii bulshada ku dhex jirtaana waxay bulshada qabto waa inaan sheegno adigu wali lacag ma ku siiyay Fahad Yaasiin aniga beesiis marra aniga bees nin shaqaystoonona bees aniga hadii inta lagu sii oo inaad niikisa aad ku qasban tahay kuwaas beesmiya ma kuwaas wax la qaato ma ahani weligay Fahad waa la kulmay dad aniga ila socda account lagu qoray ilaahay nabi maxamed sameeyay hortiis ku dhaarna aweyso inaana Fahad 5 shilin asiga oo aan koobi ku xab hadoo isilaan kama qaatay sababtoo lacagtiisa ummadda in lagu fidneeyo lacagta oo bixinay ninkii liidada ma salaad ninkii liidada oo bixinay taliyo hore Suudaanka Fahad Yaasiin lacag dadka lagu fidneeyo waa ilaahaygi iga celi lacagtiisaan qaba aan aaminsana aan ku shukrina bees uu bixin jiri Fahad Yaasiin laakiin bees habarta xataa qorta ka soo geey lagu leeyahay habartii ma ani bees aan mataqaana adduunyan ku bedelna marka labada maamul ama labada hay-adood ee sirdoonka ee xilliga Fahad u joogay iyo xilliga hadda mahasad u joogay waxay ku kala duwihiin qabkan soo celin kabilowgan soo celin aldhijir war qabka la sheega waxa waaye waa markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliyeed shabaab tuulooyin iyo degmooyin iyo gobolo laga qabsado taas qabl yiraahdo laakiin qabl imida beesan ku siina hotel jazeera ku dejina dheeladaada isbarmuuta iska dhuqdhuq ummadda Soomaaliyeed wixii lagu sameeyay iyo sacbi qabka ay sheegi jireen qabkaas waa hawlgallada ka socda Hirshabeelle maadaama nin Hirshabeelle ka soo jeeda aad tahay maxaa door u hod ku leedahay maxaa kaalin ah oo aad ilaa ay hadda ku yeelatay oo aad ku leedahay weyn ku leeyahay waan doorkii saaran oo aan qaatay wuxuu yahay deegaanada la xoreynayo ama dalka muwaadin Soomaaliyeed ah passport ajnabi malihi dadka Soomaalida ku dhax noolahay adduunyo kale malihi wadan kale malihi doorka aan ku leeyahay waxay number 1 inaan afkeyga gacanteeda shabaab iyo argagixiso kula diro inaan afkeyga gacanteeda anigoo tuulooyinka iyo degmooyinka lagu xoreeyay joogo taagan shacabkii dhax taagan inta qorgeyga garabka gashtay aan furimaha dagaalka aad aan soo dagaalamay aan xabad suurida aan shabaab meesha ogay ugu soo noqday ana doorkeyga waa qaatay cid kasta oo Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa nimanka cadowga ah talaabo si ugu qaadi lahaayeen deegaankooda iyo dadkooda ugu xiriirsan qofka Soomaaliyeed waajib ay ku tahay ha ka shaqeeyaan meeqa maalin aad qori wadatay oo aad xabad ridaysay wallahi aniga inta dagaalamay inaan hadda sheego oo faahfaahin macna sameeyo laakiin inaan dagaalamayo oo shabaab waxay xabad nagu soo ridayeen wax la mid aan ku ridayo oo aan nafteeda halis u geliyay dadka iyo deegaanka dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed shaki iyo daacido ka saareen qof walba aan og marka annaga hadana shacabka Soomaaliyeed waxaan mataqaana go'aansanay iyo siyaasiyiinta iyo cid walba waajib ka saaran u yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in la garab istaago baaqiis la dhageysto sirdoonkan Soomaaliyeedna shaqadooda loo daayo waxii isku milnaan jiray oo isku dhaxmalaas jiray waa la kala saaray waxay soo haray maxaa Cabdullaahi ninkiliida madaxweyne Maxamed Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay madaxweynuhu sidaad shabaab uu dagaalo hays oo habeenba gees ugu jibinooyis adiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre iyo hanti dhowrka qaranka cidul sida shabaab loola dagaalayo waa in loola dagaalo kuwa xoolaha ummadda dhaco hooyo miskiin oo daawo la soo degtay ama maxaan ku yiraahdaa oo miskiin oo coos iyo balmasha guday wixii laga qaaday in dad kale Soomaaliyeed oo maxaan ku yiraahdaa qanjiirada iyo calooshada waxay dheeyeen annaga aan dharin inay ku noolaadaan lama aqbalayo annaga waa sheegaynaa waana sheegi doonaa cid aan uga baqaynin male sida shabaab loo dagaalayo hadii musuqmaasuq loogu daro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taariikhda Soomaaliya baal dahab ka galaa taalan loo dhisay insha Allah dadkii ka soo horjeestay farmaajo
la jirsaday xasan sheekh ama uu ololeeyay ama taageeray waa la abaalmariyay ama lacag ha la siiyo ama xilal ha lagu taxo adi maxaa xil oo lagu siiyay maxaa lagu abaalmariyay madaxweyne xasan sheekh dada ag fadhi niman shiica u eega xilal loo magacaabo oo aan abadkay arkin xilligii campaign-ka lagu jiray dadkaas ani ma arkin dad garkooda saa inta garku u deystay maxaan ku maxamuud axmed nijaadkii Iiraan xukumi jir oo wadago wax shiica laga aqoona maxaan ku yiraahday xilkii dawladda lagu taxohay dadkii xasan sheekh campaign-kiisa dartood loo xiray oo xabsi loo dhigay oo loo liif garaacay maana shaqo caawayaan waa niman wareersan ayuu taleefankooda iyo gacanta ku haystay xikuleeyay taleefankayga ma aragtay jeebkaada ku jira isii oo taleefankooda waa haysta dadkaas inay isla hadlaan wax gaarsiiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dadka ag jooga nimanka shiicada ogood xilku magacaabaysa inta iska daysiin kuwii campaign ka qayb qaatay ee farmaajo la diriray ee kaliya taliska wadanka ka saaray xilka sii saxdii lagu soo jiro ummadda waa halaagsamaya cuquba dhacaysa dadka kambeeyay ee wadanka wiligood aan ka bixin xaq ku leh si nima baasaboor maalay ka imaadaan aqoon baasaboor ajnabi wato shiica iyo maxaan ku yiraahdaa iyo u eegad xilal siinooysiin waxa lagu leeyahay hebel waa agaasimaha guud ee wasaaradda hebel hadda abadkii xamar kuma ark haddaad aragtid maxaan ku yiraahdaa kama taqaan nimanka shiicada iyo miniinta gowracay kuwaas ma xil u dhiib karaa adi maxaa heshaad ani waxaa helay dawlad Soomaaliyeed oo isharfayso oo karaameynayso oo maxaan ku yiraahdaa qofkan aniga ahay og oo inaan dadkii jecelahay ogaa joogto madaxweyne xasan sheekh campaign-kiisa ka hor laba habeen mise hal habeen aan is aragnay waxa iiga muuqata danta wadanka in ninkaas ku jirtay dantii aan sheegayn iyo waxaan u socon maanta waa muuqata waa kana maanta baawar aan iska qaadad meesha Mr Fruit Malira aad isbarmoota ka gadatad waxaad iska aadaysaa suuq xoolaha iyo meesha aad baawar ku dalxiisaysaa shabaab ma jiro wuuna u fiirsaday danta wadanka meesha laga hayay inay amni darro ay tahay wuuna ka shaqeeyay intaas ay u filanay ana inaan libisanahay qadaynayo quraacanahay goobteeda shaqada ah degada Muqdisho way aan tagi kara aniga iga badan wax kale aan u baahanahay ma jirto farmaajo taageeri jirtay waa ka soo gudoontay hadda waxa soo aaday xasan sheekh waa amaanusa adi maxaa iska bedelay sidaada farmaajo dadku waa sixri jiray farmaajo maqli jirtay in la dhigi jiray farmaajo waa la jecel yahay oo lii ilaahay waa saan waa dadka in dhulka isku garaaci jireen ma ogeed farmaajo dadki tahliilas indhaha uu shubi jiray farmaajo cid jecel ma leh jecelka la jecelan haduu noocaas yahay waxa waaye waa la isbarnaa ha soo noqdo madaxweyne bal ha noqdo jecelkii la sheegay dadka waa ka baxay dadka miirka u soo noqday dadka dawlad muwaadiniin Soomaaliyeed wadankooda wiligood aan ka bixin ay hogaaminayaan hadda wadanka ka jirto dadka miirka dadka saara laga tumay qoryahooda ay garab ku qaateen shabaab ay aadeen farmaajo saayid heblaaya santiri dadka waa ka baxeen dadkan sixir ugu mahaysan kara iyo indhaxdeys adi kuwaas sheegaysid ee la sixray ee farmaajo uu sixraday ee sidaas ku taageeray ma ku jirtay aniga imana sixri karo aniga waxaan farmaajo dadka keenay oo maxaan ku yiraahdaa laba boorso wata airportkan ka soo dejiyay hawiye ahayeen hawiyihii keenay oo kaarkii wadaniyada ugu xoqday wuxuu ku dhigay waa aragtay ilaahan kugu dhaari salaad cali abgal wuxuu ku dhigay farmaajo war muuysa salaad cali jalan wuxuu ka dhigay safiir xunduweyn wasiir amni ugu dhigay abgal labadaas ninka abgal xil ugu dhiibay abgal mu dareemay mas'aalas ku ridi abgal ma lagu aqooyahan abgal ma lagu nin maxaan ku yiraahdaa dadkan wax u sheegi kara nin xunduweey nin salaad cali jalan way farmaajo wuxuu dhigi jiraan ku sheeg dadku wuxuu leeyahay adig abgal idin haysto habar gura idin haysto maxaan ku yiraahdaa ina ma iska dul qaada iyagu damcaan isku qatar qabiilba qofba ka sii liito hawiye farmaajo la shaqeyn jiray hadda dib ugu laa wixii farmaajo magacaabi jiray hawiye dhan maxaan ku yiraahdaa waa aragtay taabid hadda ma hawiye maxas ka goyna maxas ku tara hawiye xunduweegaas kii kale ii sheeg oo wasiirka uu ka dhigi jiray wasiirka amniga uu ka dhigi jiray warniyo hawiye farmaajo abaalkay u galeen uma gudin balse ceelas ku ridi wayna arkeen dibdaban uma aamini doonaan farmaajo qof kaliitu rabaa wallahi inuu san karmeed oo kartale oo san rabin aniga haddaan noolahayna doorashada soo socoto u malay maayo hadda wadanka xaaladu ku jira nin sharfan oo qiimo badan xashiq liraa hadda xukunka jooga in doorasho wax laga shaqeyn doono uma malay farmaajo hadduu isku dayo in tartan soo gala u yiraahdo
waxaan isgoyska ceelgaabta laamida u fadhiisanaynaa runtaan sheegaynaa ma ka baqayno dadkan waxaas ku dhig isla goosaa inta laga bixiyay oo maxaad u banaanbixi goosaa loogu bixi meesha ku arkay waxaa waaye kaligii talis oo kii ugu xumaay waa ninka Ethiopia iyo kii muxuu ahay afwarki nagu xiray afwarki Soomaali muxuu taray had shaq waarta afwarki hadda uu hayaa Ismaaciil Cumar Geelo hayaa madaxweynaha Kenya hayaa madaxweynaha wasaariga Ethiopia hayaa dhamaantood waa la isku hayaa dan Soomaaliyeed la isku hayaa laakiin awal wax dhigi jiray wad ogaadeen shiina waxaan rabaa inaan ku weydiiyo siyaasadda intee rabtaa inaad ka gaartid heer intee leeg wallaahi aniga niyahow siyaasadda inaan meel ka gaaro waxa iga muhiimsan in waddankan inuu hagaago amnigiisa mid fiican uu noqdo dhaqaalihiisa kobco inta caalamkuna aqoonsado baasaboorradeena meesha lagu tagi karo aniga intaas ay badan waddankan qurxanaado waa anigoo qurxanaadi waddankan caafimaad waa anigoo caafimaad waay markaan aan ku weydiiyo Puntland waxaa jira khilaaf soo ifbaxay oo dawladda federaalka ah kala dhaxeeya waa arkaysay warmuftiyeed iyo waxba maaragtay la soo saaray sidee u aragtaa Puntland iyo arrimaheeda Puntland horta waxaan leeyahay reer Puntland annaga haddii neefta inaad naga gadataan aan neefsanayna aad awoodaan waa naga gada leedan war maamul goboleeda tihiin maxaan ku iraadaaye annagana maamul goboleedaan nahay waddankan maamul goboleed kale uu leeyahay galmudug iyo Puntland waa isku xuquuq Puntland iyo Koonfur Galbeed waa isku xuquuq Jubaland iyo Hirshabeelle waa isku xuquuq maalin walba Puntland haday taagnaato wala xambadsana aniga sid ku badsanay maamul goboleeda tahay ninkan dowlad goboleeda adiga dowlad goboleeda tahay dowlad federaalka oo ismatihiin Saciidani Farmaajo la dirir kii ka horeeyay waa la dirir asoo wasiir ah kan hadda wuu la dirirayaa Saciidani meel u roon adduunyo aakhira ma leh war waxaan leeyahay niyo wax kale inta iska dhaafto Soomaalinimada ka tagin hadda maalin hore waxa la sheegay inuu yiri waa goosanayna Soomaaliland asoo hortiisa goosto meel aadala oo sacboolay wuxuu goosana maxaa ma goosan kariyo gobol Soomaaliyeed oo wax sheegan karan ma jiro waddanka dawladda federaalka ka jirto dawladda federaalka wixii ay xariiqdaan soconaan Puntland maxay qoonsatay ama maxay rabtaa oo aad noo sharaxi kartaa wax badsi Koonfur Galbeed ana ka fiican ana ka weyn Hirshabeelle ana ka fiican ana ka weyn Puntland ana waa un maamul dawladda federaalka isku dhiririnaysa oo ay isla ekaysiinaysa waxa saas yeelo waxaas walaaqayeen waa Saciidani waxaan leenahay damiir nool hadaad leedahay dadkan Soomaaliyeed kala wadin dadkan Soomaaliyeed iska horkeen maamuladan kala xuquuqtiin maamuladan kale hadaad adiga fidna rabto hanaga fidneen maamuladan kale bis Saciidani dadkaada ma hayn kartid Soomaali way ma hayn kartid war qoyskaadii jufa ahaan qabiil ahaan isku xigteen hal qof ku dhageysana ma leh dadku waa ku wada fahmeen Saciidaniyo hadda san ku sii socotid laami cad adoo taagan waxba aan sacboolay waxba aan inaad arki doontaa ka joog dadka Soomaali isku hay haddii damiir nool uu kugu jiro dadkan isku hay dadkaada isku hay Soomaali isku hay haddaad intaas sameyn karin wax yaraad aruursatay waxaad yiri imaaraad la aad ku dhuuq meeshood waddankan ka tag dadkan ka tag culayska ka dulqaad sidee u aragtaa hogaaminta qorqor ayadoo aad ogtahay in dad badan oo isaga dhaliilo oo ka soo horjeeda siyaasaddiisa iyo waxqabadkiisa ay jiraan kuwa kale oo taageersanna ay jiraan iyo madaxweyne mudane Axmed Cabdi Kaari qorqor horta reer galmudug dadka qorqorka dawlad hadlaado waa dad iimaankiya mooto bajaaj kala carartay iimaan ma jiro waxay ka rabaan waa hunguri iyo beeso war beeso maanta lagu siiyo maanta gurigan oo lacag hadii la siiyo waa dhamaanay qofka ma dhamaanayo beeso wixii hore aad soo aragteen Allah idinku afaa madaxweyne Axmed Cabdi Kaari qorqor madaxweynihii galmudug ee ugu horeeyay ee 17 sano meel shabaab ilmo ay ku dhaleen ka xaaqay gacanta ku dhigay waa
madaxweynihii ugu horreeyay galmudug madaxtooye maamulada dalka aysan lahayn sameeyey waa madaxweynihii ugu horreeyay oo golo wasiiro tayalo wax qori kara keeno waa kuwii hore waa ogad qaranqori ay wada jireen wasiiradii oo madaxweyne axmed cabdikaari qorqor intuu simaan ka hor wasiiradii joogi jiray galmudug qaranqori ay wataan waxay qorayeen waxay ku leeyihiin warqadan waxaan kaa codsanaa xafiis hebel iyo geey xafiiska markii la geeyay waa lagugu soo tuuraaba war dad wax qori karo wax aqri karo keenay galmudug oo xoreeyay maxaan ku yiraahdaayay qabaa'ilaadka sidii wax kala leeyihiin oo kala qaybiyay hal qabiil oo u badiyay ma jirto qorqor la shaqeeyo sababta dadka galmudug xilligaas xilal ku ahaayay oo aad leedahay qalin qoriga loo qeybiyay wax ku qori jireen maxay ahayd duruufta heerkaas gaarsiisan ee keentay qalin biir ma laga waayay magaalooyinka galmudug qalin biir laga ma aqoonin galmudug ninka hadda 50 sano ka ama 40 sano ama 60 sano ka hor dhintay ee galmudug ku dhintay maanta haduu ilaahay qudradiisa awood ilaahay qofkaas soo noqdo wax meesha soo maray iyo waxa ka jira iyo inuu si aqoonsi doona ma sababta ku aqoonsi doona waxa waay galmudug maanta waa half London waaye sababtoo galmudug laamiyaasheeda wadooyinka si loo dhiso waad aragteen xafiisyadii wasaaradaha si loo dhiso waad aragteen gudoomiyihii baarlamaanka galmudug ama gudoonka baarlamaanka galmudug intaas ku hooyi jiray mataqaana aqal Soomaaliya ku hooyi jiray looma dhisinba nidaam dawladeed iyo meel wax laga dhisay hatta galmudug wiligeed cagta ma saaran war Axmed Cabdikaari qorqor mudiir oo jooga reer galmudug ka faa'iideysto la shaqeeyo ee dhageysta haddaad maamulka dabar raacdaan war maamulada kale idinku dul cayilayo meeshina joogaysiin hal la shaqeeyo ninkaas waqti yara u haray aniga qorqor laba jeer meesha kula kulmay uqsim billahi alazim madaxda dowlad goboleedyada aniga madaxweynaha leexijiyo oo saaxiibkii lillahi waa cali guudlaaw xuseen ninka ugu qalbi fiican ee ugu daacsan dowlad goboleedyada ninkaas qorqor laga faa'iideeyay habar gidir iyo dadka reer galmudug maalin walba in isdaba bursatiin oo dadka ay maamulada kale idinku ag hormaraan oo ay heer gaaraan oo adika aad farq isiisay waxba tarmayse qorqor la shaqeeyo maxaa ku cadeynaya dadkaas inay yihiin dad hunguri u wado oo sidaas uga soo horjeestay qorqor waxaan ku asma dadka sawirada in soo bixis wajigooda fiiri soo dhaweey fiiri dadkaas macnaha waxa dadkaas waxa ku adaa fahmayo qorqor dadka ku dhagan dad ilaahay iimaanka oo mootabajaaj ka saaray waaye oo waxba aan haysanin waaye oo raba asiga la fiis inay xaqtaan hadii dan guud iyo ummad reer galmudug dantooda la fiirinayo qorqor nin gaar ma qorqor la shaqeey maaqa madaxweyne soo ana markii galmudug la asaasay waa joogay nin liiraado kiimika Allah u naxariistay oo inuu reer America inuu reer Ingiriiska aan aqoon ayaa yimid dawladda Cabdullaahi Yuusuf jirtay galmudug maamul goboleed oo sameeyo galmudug liiraado عبد غيب دين مدحونا كسنوي كيم كان قلمه ذو سوس سمي فحاف يا عبد الكريم حسين قولي دو أردت إلها كوجود داري قرقر مركو يمت قلمه ذو تلشيء مع هذا مركز علفهم ده كأي قلمه ذو هذا مركز علفهم ورا قلمه ذو أو الشركة دول الجولات في السنس أو واحد ديديس واحد نيالي ساجوك تمات قلمه ذو تي هراء ما نوع مرتين هذا الشكل بالوجيه marka niyo aweys waxaan ku sheegaa aniga wiligay ilaahay inuu adduunya aakhirana ilaahay qalbiga uu dalcanaya aniga qofka Soomaaliyeed wanaag sameeyo ma xaqiray bees ama haysi am yu isin shaqo bees ana kama shaqeeyo waxaan ka shaqeeyaa qofka ma fiican umada ma fiican oo fiican inta soo gobolka Banaadir waxaa la magacaabay nin hore xil uga soo qabtay oo soo shaqeeyay mudane Madaale hadda isaga soo laabtay sidee u aragtaa shaqada gobolka Banaadir ka socota iyo qaabka maamulka loo qaybsaday iyo waxa socda sidee u aragtaa gobolka Banaadir anaga gaal jeclaana gobolka Banaadir beesha gaal jecel waa ku qatan tahay beelweynta ugu dhaw iyo beelweynta gaal jecel labadoo waa ku qatan yihiin Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale gudoomiyo intaadan gudoomiye noqonin Xasan Sheekh oo hadda madaxweyne noqonin farmaajo wadankan oo dhibaatada ku hay 10 jeer aan wada hadal 10 jeer aan isma qalin wixii
markan ku iri gudoomiyow gaaljecel ee gugudhawo waa qatiyihiin haddii ilaahay hawshan ugu guuleeyo wixii hore waxbaa laga bedelaa atiri gudoomiye madaalo wasiirka arrimaha gudaha ah macallin fiqiyo ilaahay adduunya aakhiro waa idin kula xisaabtama mas'uuliyadda haysiin inaad raxweyn gudoomiye degmo siisiin oo majeerteen degmada cabdicasiis aad iska siisiin oo biimaal hamarjishba aad biimaal ku qortiin walaalihiin gaaljecel iyo walaalihiin gugundhawe baadacadda iyo jejeele iyo gaaljecel inaad wax ka sii weysiin annaga marka aan daarood jeclaanayn inay xilka ugu sareeya waddanka ay qabtaan waa marka dadka noocaas aan aragno war wax noo ogolaada oo kuraasta wax naga siiya warkan waa koow waa laba malidiin miya adag kaligiina wax isu ogol war walaalihiinaan nahay hawiyaan nahay idinku qaraanaan nahay idinku xuquuqaan nahay gobolkan banaadir oo habartii meelmaraysa xilli hirig lagu siino hayo walaalihii gaaljecel iyo baadacadda iyo jejeele wax ka siiya xildhibaanada gaaljecel iyo xildhibaanada baadacadda iyo kuwa jejeele waxaan halkan ugu diraa fariin war meel walba wax lagu qaybsanaa maxaad ugu maqantihiin markii wax la qaybsaday inaad tagtiin aad leedihiin annagu waa qatana maxaa u qatanaa wayni markii wax la qaybsanaa meel kale ku mashquulsantee meesha ku mashquulsatay inaad ka soo baxdiin war gobolka banaadir waa idinka badan yahay xuquuqdiina u doona adinkaa siyaasadda iyo kuraasta ku fadhiye haddaan maanta aniga xildhibaan ahaan lahay dadka Soomaaliyeed qabiil hebel hala dulmay ma dhihi lahayn balse qabiil walba xuquuqdiisa inuu helana waa ka shaqeyn lahay dadka aniga aan matalane number 1 ayaga iyo ahaan lahay marka banaadir la joogo degmooyinka dadka marka loo dhiibayo xilalka qabaa'ilka iyo sida ay ugu kala badan yihiin la fiiriyaa adiga gaaljecel ahaan intee ku badan tihiin oo maaragtay xaq u leedihiin in leedin magacaabo ama xil idin kugu dhiibo ana hadda waxaan ku tusaa habargidi hal degmo ku soo aruurtay haddii saan ku sii socdaan habargidi hal degmo bas u kaltamaysaan ku tusaa xaqi dulmiga lagama shaqeeyo meeshaan ani inaan baxo Puntland xilliga ma siinayo inaan baxo Somaliland xilliga ma siinayo maxaa laga jirnaa dadkan u dhimanay ana hadda waxaad leedahay si loo kala badiyay degmooyinka si loo kala diyaa xil isku siyaa waa sax aniga iga badan xamar jabaan deganahay dalkeenna deganahay yaaqshidan deganahay waxaan deganahay kaashay meeshaan kaxdaan deganahay meel madiina deganahay maxaa waa beriyaan deganahay qoysas waa dhici kartaa inay degmooyin degan yihiin laakiin waxaa laga hadlayaa degmo ay qabiil u badan yahay laga hadlaa sidaas darteed in qof loogu dhiibo ayaga xil loogu dhiibo qoys meel degan ma ahan dad Soomaaliyeed oo gaaljecel la yiraahdo oo degmooyinka degana buuxo oo maxaan ku yiraahdaa canshuur laga qaada oo canshuuraha biri guryaha ay dhisanayaan canshuur laga qaado waay laakiin wax walba aniga fariinteeda wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha gobolka banaadir waa u gudbiyay dadkan Soomaaliyeed ee gobolka banaadir aad xilka wasiinaysiin beelaha ka maqan oo markii dhib as jirna aad kala ordaysiin markii dheef ay maadana aad albaabada ka soconaysa iska dhaafay gaaljecel baadacadda iyo jejeele xuquuqda idin kala rabaa adiga shakhsiyadaadaan rabaa markaan inaan wax ka weydiiyo shiine waxaa dhacda mararka qaarkood adiga siyaasadda aad ku dhex jirtaa ani ma isku amaanay nin wax dhisi karo waxna dumi karaa sax waa nin wax gooyo aad isu aragtaa hadda sidaa sheegaysid siyaasaddii waa ku dhex jirtaa siyaasiyiina fursad u heli kartaa mararka qaarkood inaad la kulantid xitaa madaxweynayaal oo maamul goboleed ah wareysiyo ayaad bixisaa shirar jaraa'id haddana sidaas oo ay tahay marka social media la yimaado dadka qaar madadaalay ka dhigtaan maxaa ay ku dhacdaa isleedahay may dadii qosolka dhiganayaan waa wax iyaga qosay feeri aniga waxaan aniga rabo inaan ku hadlo ama waxaan aaminsanahay lama gambadee waa sheegaa dada hadda wuxuu leeyahay niyo Salaad Cali Jeelle markuu qodbayna dadka waa ku qoslaan aad markaad hadlay dadka waa kugu qoslaan dadka qosolkooda afkooda ma aniga leeyahay ani ulujeedka wax leeyahay waxa waaye waxaan aniga dhahay in la maqlaa muhiim yahay in la caay in la amaano waliba in la caay waxaan ku jeclahay waa ana magacayga meel dharsi gaaray dadka caayada ma ka gabadano aniga
maxay caay iga bedelay ana burush xaar la watay maxay aan caay iga bedelay in la caay in la amaan waa isku keemid laakiin muhiimaddu waxa waa wax meeshan u socday waxaan ka shaqeynaa inaan ka cabsanin waxaan ka shaqeynaa hadda fiiri shabaab in la dagaalo shabaab hadda ma kala dhunto ma la cabsado shabaab in la dagaalo aqoonta ma aqaan dowladnimada Soomaaliya in haday saxantay haday qaldan tahay lala jiro aqoonta ma aqaan musuqmaasuq ninka xoolaha umada laqlaqay ee massage Nairobi iyo Turkiga u aaday in umada lagu hor ceebeeyo waa aqoonta ay tahay aniga wax ii dhowran ma jirto waay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka ma ka taqaanaa dadkii ugu falaadaya dadka waa ka aqaanaa waxaa ka mid ah nin saaxiibkii oo Bashiir Maxamuud Liiraad Bashiir Maxamuud nin qiimo badan waaye cilada uu leeyahay waxa waaye wuxuu kugu soo dhisaa nin gacan riixanay oo yuridkaaga soo gelin kugu dhisaa marka Bashiir uu iska falaadaa ma aqaan marka qaar waxaan isleeyahay nin waxaan uu ka dawado ma falaaday ka tahay ma qaraaxo karaadina ay qosol ma daacaday ka tahay laakiin ana ogahay Bashiir aniga isla furno isla cashayn oo waxa iga soo qora dadku ay soo waceen waxay leeyihiin inuu Bashiir Maxamuud kugu dhigan maxaa jira inaa isdagaalsanay Bashiir wallahi saaxiibkii waaye wax walba ay dhigi kareen waa u furiyay qiimo badan waaye laakiin dadkan gaari gacanada taayirada ka bajari hay ugu soo dhisin aniga waxaan ka shaqeynaa nin yaqaan nahay laakiin hadii maalin qof meel mar inta gaariga aad meel ugu tiirisa ay soo qofka ugu soo dhis qalad waaye marka aways dadka saxaafadda muddo aan aqaan adiga asaga kamid ah qof adoo qiimo ku leeyahay saxaafadda waa adiga iyo koob kala mid ah waana mar walba waxaan kaaga mahad celinaa talooyinka wax dhiska ah ee wax toosiska ah dhalinyarada siisna wallahi kaaga mahad celinaa taarimkii Xasan Sheekh Maxamuud uu joogay ee xilligan ka horeysay farmaajo ku soo xigsaday hadda oo Xasan Sheekh uu joogo iyo wixii ka horeeyay xitaa Sheekh Shariif dadku markasta shacabka waxay ka cabanayeen oo ay sheegayeen musuqmaasuq iyo cadaalad dari waxaas maaragtay maxaa u sababaad isleedahay hadda nina maanta isaragna qodobka muhiim ah nina maanta isaragna wuxuu dhahay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh aad u dhacsantahay waa taageersantahay niyo laakiin Xasan Sheekh taarimkii horena xamaran kula joogay u dhahay ninka odayga dhaaya xamaran kula joogay hadda xamaran kula joogay Xasan Sheekh madaxweynaha niyo magaalada kuleela ka jiro dhahay Xasan markuu yimaado baab iftaax ma ah miyaa u dhahay niyo maxaa jiro magaalada hor waa weyn maxaa jiro ma ahna dhahay madaxweynaha nin qol ku jiro oo wixii loo tago loo sheegaa waan dhahay madaxweynahana magaciisa iyo sharaftiisa dadka qiimo dilay waxa waa niri kuwa maxaan ku yiraahday wax ma garata madaxweyne Xasan Sheekh shabaab saa uu dirtay ugu celina shabaab saa uu dirtay walaalo musuqmaasuq da uu dirtay guri walbo Soomaaliyeed taale kaga dhisay taale oo Ilaahay uu geeyay sababaan laakiin shabaab aan la dagaala intay lagu jiray xoolihii ummadda hooyo masaakiin ilma Ingiriiska iyo Nairobi ka yimid ay daldalanayaan iyo ma soconaysay saas waxa laga bedelo adigana waa ku aqaan nin xoolo cun ma tiid nin tuuga ma tiid laakiin dadka ka ag shaqeeyo dhan waxay fiiro ugu talaalantahay hay'adaha dawladda ay ugu talaalantahay niyo shaati gacmaha la laabo dhaxgal waxaan kala shaandhay shabaabad la dirti okay Allah ku sharf nooga dar kuwa waxaday in xilal ka qaad guriga hooyadood ay u dirtay way Xasan Sheekh haduu yahay nin fiican hareerihiisa waxa laga helaa dad fiican Soomaali maxaa dadka hareerihiisa jooga ka dhigay dad xun taas ka jooga madaxweynaha markay u tagaan maskarada u gashay madaxweynuhu intay ka dhacday saanwa madaxweynihiin run uma sheegayaan godna waa ku ridayeen god madaxweynuhu ninka xilkaana anfacay ninka meeshaan anfacay leeyahay madaxweynuhu god yaan lagu ridin nin qiimo badan tahay laakiin ku imaanaho dadka ku keenay danahooda ka shaqeynoo hayaan danta Soomaaliyeed kama shaqeeyaan dantan kama shaqeeyaan wadankan hal mar ayaa magac xum kaaga dhacday guriga dhistay intay ka dhacday meel hebel Kristi lagu dhigi jiray
wixii waxay iskugu jireen kuwa farmaajo oo campaign ka dhigi jiray iyo kuwa dad adig iska ka nacib xadiifad qabiila inaad tuugeen guri aadan dhisan waxan aadan sameyn madaxweyne xasan sheekh ana marqaad kaaga laakiin kuwa xilka dawladda hadda ay aada u timid ada hortaa xilka loo dhiibay kuwa xilka jooga hadda ada u timid inuu ka shaqo ka soo baan maanta maalin aan ummadan hore imaanayna waan u sheegayna magacyada liis ana soo qoray cid aan ka baqana male koonfur galbeed aan wax ka weydiiyay markan siyaasadeeda si ay u khalafsan tahay maaragtay waa la iska soo horjeedaa heer waxaa la marayaa madaxweynihii iyo gudoomiyihii baarlamaanka ay ku baaqeen shir dib u heshiisiin ah waxa koonfur galbeed ka jira sida u aragtaa iyo hogaaminta lafta gareen koonfur galbeed waxaan u arkaa nin Cabdicasiis lafta gareen inta markuu yimid aniga 3 jeer aan waxay 3 jeer aan waxay hal mar waa wada hadana laba marna waa isheli weyn aniga nin gaal jecel ah deegaanka ka soo jeeda gaal jecel lafta gareen wax oo meeshaas uu haayo wali gaal jecel lafta gareen si xun u kufsaday lafta gareen Axmed Madoobe aniga lafta gareen ay xeew laakiin marka lafta gareen arka Axmed Madoobe iyo Ronana lafta gareen qabaa'ilaadkii meesha joogay hawiyaha xawaalde murusade abgaal gaal jecel meesha ku dulmiyay lafta gareeno dulmigaas walaalahan dulmigaas asameysay beelaha gaal jecel iyo qabaa'ilaad kale hawiye meesha degan niyo xuquuqdooda iska bixi tan labaad waxaan ku leeyahay adiga iyo dadka reer koonfur galbeed miiskooda hadalka fadhiisa isfaam wada hadal ku xalliye ani shakhsiyadeeda marka laga hadlo ani lafta gareen wax dhib ah kuma qabo waa nin wanaagsan waa nin qiimo badan laakiin tii qabiilkeyga iyo tii dadkan kale wada degno hawiyaha markaan fiiriyo lafta gareen xoogo qalinkiisa dhinacaas u jiifaa qalinkaas inta kor u soo qaad dadkaas xuquuqdooda siiya tabashada halka sano ka imaadayna niyo dadka la fadhiisa madaxweyne xasan sheekh dhameeyay inta dhimana adiga dhameystir way aan ku weydiiyay markan maxaa tala oo ku soo gabagabeynay walaal waxaan talo ku soo gabagabeynaa dawladda Soomaaliya la shaqeeyo aniga maanta aweeso galmudug waxay u weydiisay laakiin dawlad goboleedkii dhamaayo Hirshabelle xabay iga weydiin maxay ku dhacday way haddaan ku weydiinaaba Hirshabelle howlgallada dhacay wax badan jira ka horna intaysan howlgallada bilaabanin qabaa'ilka qaarkood tabashooyin ay qabeen oo madaxweynaha loo qabay maamul goboleedka Hirshabelle waxa sidee u aragtaa maxaad ka dhihi lahayd dhanka tabashada ah madaxweyne xasan sheekh hore u sheegay wax walba tabashada waxa la xalin karaa marka shabaab wadanka laga nadiifiyo markaas awood qaybsi wada hadal loo imaana madaxweyne cali guudla asagan wuxuu waqti walba diyaar u yahay cid alla cid tabasho qabtay inuu xalliyo cid alla cid tabasho qabtay inuu la fadhiisto adiga beeshaada ma qanacsantahay wax kasta oo ay Hirshabelle ka rabtay sida ay uga rabtay ma uga heshay Hirshabelle marka si loo fiiriyo waa wada qanacsan yihiin waxay ku qanacsan yihiin xiriirkii haysteen beesha aan ka soo jeedo sida ay u haystaan beelaha Hirshabelle degan hal beel oo wax sheegan karto xawaadla ka jiro xawaadlana in la dulmiyo ani ma aqbalay iyagana inay wax dulmiyaan ma aqbalay meel fiican hadda maray tabashaasna waa la xalinaa madaxweynaha Soomaaliya iyo ballamay wax baa jiro arintaas aan ka warsugeynaa ugu dambeyn marka hadda aan u imaano maxaa tala ah oo ku soo gabagabeynaya waraysigeena waxaan tala soo jeedinaa dawladda Soomaaliya in la shaqeeyo madaxweyne Axmed Cabdikaari qorqor la shaqeeyo madaxweyne Cali Guudlaaw la shaqeeyo warhawiyo deegaankiina iyo dadkiina iyo ayina ka tashada maalin walba hawiye inay farqa haystaan ma aha hawiye waa in fiiri kuwa waxa dhahayaan arintan muhiim ah dada waxa dhahayaan habargidiri abgaal xasan sheekh maxamuud xiriirka wuxuu siiyay habargidiri abgaal in la siiyo wixii habargidiri abgaal la siiyo hawiye waa la siiyo anaga waa la siiyo walaalaheen ma naga maqno muhiimadda ma aha in cid kasta wax la gaaro laakiin habargidiri abgaal haday wax qaateen gaal jecel qaatay murusada qaatay xawaadla qaatay baadcada qaatay doodiya qaatay jijala qaatay cid kasta qaatay kuwa saas dhahay oo habargidiri abgaal xiriirka xasan oo ku taxooya dhahay ana waa aqaana adduunya aqri ana ilaahay waxay weydiinaa
waa nimankii dalka xukunkiisa laga adkaaday waaye waxay tafuraar u dhaxgelinayaan dowladda Soomaaliya iyo dadka hawiyahay tafuraar u dhaxgelinayaan waa idin fahansannahay xasha sidoo wax ku maamulay waa ku qanacsannahay habar gidir abgaal sheegay abgaal hatta do ku taco niman walaalaheen waaye raalle anaga ku qarabsiinin waa maasantahay aad u maasantahay maxamed xuseen shiine nin dhalinyar ah oo siyaasadda Soomaaliya aad ula socda falanqeeya wax badan ka yiraahda xog ogaalna aad iyo aad waa kaaga mahadcelinayna